والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha ay la socda oo nagala socda barta aan ku leenahay Facebook golaha dhambaal saad la socotaan ba waa gole wax akhris wuxuu falanqeeyaa oo gorfeeyaa buugaag oo doortay goluhu uguna talagalay in uu la wadaago dadka kale waxa weeyaan golaha ku jirin gaar ahaan Soomaalida si uu uga faa'iideeyo isla markaana xogta buugtaas la qoray ama Soomaali ha qorto ama Carabi ha qorto ama cid kale ha qortee uu waxa weeye u noqdo dhaxalgal ummadda Soomaaliyeed u soo hara goluhu maalintii ugu dambeysay wuxuu gorfeeyay buug oo qoray nin qora ah oo leeyahay Dr. Jasim Sultan oo wadanka Qatar u dhashay ninkaas oo asalkiisa hore ahaa nin dhakhtar ah markii dambana ku takhasusay strategic planning-ka iminkana leh mashruuc oo u bixiyay mashruuca horumarka ayuu buugtan oo silsilad ah buuga lixaad ka yahay buuga waxa la yiraahdaa qawaacida siyaasadda marka waxa weeye la sameeyo ama la hirgelinayo siyaasadda qawaacida ay u baahan tahay qofka siyaasiga ah inuu maro ama siyaasadda iyo hirgelinteedu sida ay waxa weeye qaacidanka la maro ayuu ka hadlayaa buugu wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood ayuu ka kooban yahay qaybta hore oo kaga hadlaya siyaasadda laftigeeda qaybta labaad ee uu kaga hadlayo qofka siyaasiga ah iyo qaybta saddexaad oo kaga hadlayo siyaasadda iyo la falgalideeda saddexda qaybood ayuu ka kooban yahay buuga waxaan u talagalnay oo aan doonaynaa in aan barno bulshooyinka Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan oo ay u akhristaan oo ay u daalacdaan laakiin waxaan soo qaadanayaa meelaha ugu muhiimsan buuga oo aan doonayo in aan la wadaago walaalaha dhageysanaya iyaguna marka halka ay ka sii wataan oo ay si balbalarsadaan ilaahay amarkii waxaan ku bilaabaynaa siyaasaddu waxa weeye waa dhacdo waxa weeye social phenomena waxa weeye oo jirta arintaas oo ka dhalatay jiritaanka aadamaha yaani hadii aadama jiro siyaasad meesha way imanaysaa siyaasaddu sida ay u dhalato waxa weeye hadii bini aadan jiro bini aadankaasi wuxuu yeelanayaa iskhilaaf oo waa la ismaan dhaaf ba meesha ka imanaya waa la ismaan dhaafaya wixii doonaha la isku maan dhaafay waxa labaad kala duwanaanshiyo ayaa jiraya oo dadkii way kala duwanaanayaan ama waxaas diinha ku kala duwanaadeen ama isirha ku kala duwanaadeen ama siyaasadha ku kala duwanaadeen kala duwanaanshiyo ayaa jiraya waxa saddexaadna ee keena siyaasadda waxa kamid ah ama ka dhasha aadamaha jiritaankiisa waa in suququl ay yihiin hantida la haysto waxa la haysto ama dhaqaalaha la hayaa inuu suquuqul yahay oo ku yeeyahay intaas marka waxay u baahatay siyaasad oo ah maamulidii khilaafka maamulidii la maamulay kala duwanaanshiyaha maamulidii suquuqulka resourceska lama hawee la maamulay ee hawee la isku asteynayay ee la isku fariisanayay taas ayaa siyaasad u baahatay waxa dareemaysaa marka muhiimadda ay noo leedahay bulshadeena Soomaaliyeed oo u baahan in la maamulo khilaafkooda la kala duwanaanshiyahooda iyo suquuqulka dhaqaale iyo waxay haystaan oo ku yar qofkaasi wuxuu keensanayaa in sawirka guud uu noqdo ee siyaasadda aynu ka xaweeye ka qaadanayno qodobka labaad ee ku xiga waxa weeye ee kaatibku ama qoraagu uu soo bandhigay in uu qofka siyaasiga ah qaacidooyin uu sameeyo oo yiri qofka siyaasiga wuxuu u dhaxayaa khamaartan iyo xisaabtan يعني oo ka wado dee qofku inuu qariska xoor noqdo lama rabo qofka siyaasiga ah waa inuu qofka siyaasiga meesha uu galayo ama go'aanka siyaasadeed uu qaadanayo uu noqdo go'aan uu xisaabiyay xisaabtaasina marka ay u soo baxdaa in khasaaraha iyo faa'iidadu khasaaruhu uu badan yahay oo uu noqdo lucbada siyaasaddu ay noqoto wax miisaaman oo aan lagu qaadanin dhacdada maalinta indhahaaga horteeda ka dhacda aad ku qaadanin ay noqoto wax laga fakaro
xagee ku dambeyn doontaa maxaa ka dhalanaya maxaa waxa weeye ay ku kalifi kartaa waxaasoo dhan waxaan markaa taa ula jeedaa siyaasaddu cadho kama dhalato oo go'aamada siyaasadeed cadho laguma qaato go'aamada siyaasadeed qabyaalad laguma qaato haddii ay doonayso in waxa weeye haddii la doonayo in caana laga maalo go'aanada siyaasadeed xamaasad laguma qaato ee waxay u baahan tahay in lagu qaato kabaarandeg cilmi ku dhisan sida daradeed ayaa inagu waxaynu la'anahay oo la heetinaynaa ama la dhutinaynaa inaynan lahayn goobo soo saara baaritaano iyo talooyin la cuskan karo oo siyaasigeena ama decision makerskeenu ay isticmaali karaan ayna u baahanahay inay yeelano institutions noocaas oo kale ah qodob kale oo aad iyo aad u muhiim ah oo iga soo jeetay buugga dhexdiisa markaan akhriyay ana jecelahay inaan la wadaago walaalahay ayaa wuxuu yahay in qofka siyaasiga ahi uu kala barto oo uu kala yaqaano waxyaalaha loo yaqaano waxyaalaha adag iyo waxyaalaha jilicsan marka laga hadlayo waxyaalaha qofku uu helayo waxaan ka wadaa ninku qofka siyaasiga ka soo qaadba wuxuu galay wada hadal buu galay waxba loo ogolaaday waa inuu garan karo waxaan lagu ogolaaday ma yihiin wax dhaxalgal ah oo waaraya mise wax ku xiran magacawga lagu magacaabay oo baritina laga bedeli karo tusaale ahaan qadiyad caan soo qaadanayna tusaale ahaan Falastiiniinta oo kale Falastiiniintu loolan waxa weeye qarni ku dhawaad qaatay ay ku jiraan dhulkoodii ayaa la qaatay muqaddasaadkii waaweynaa iyo goobihii waaweynaa sida Qudus oo kale ayaa la qaatay waa la boobay si kasta ayaa laga yeelay dawlad ayaa dhulkoodii waxa weeye lagu sameeyay Yahuud ah oo aan dhulka u dhalan wala socotaan ninka siyaasiga ah ee Falastiiniga tusaale ahaan oo kale marka uu la xaajoonayo ninka Israa'iiliga haddii ka soo qaadba uu ogolaado Hamas oo kale ninka Israa'iiliga ahi in ay waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiir hebel iyo wasiirada ay qaataan laakiin ay taa bedelkeeda ka tanaasulaan in caasimadu waxa weeye Qudus ah oo Falastiiniintu ay aaminsan yihiin in Qudus caasimadoodu tahay in ay waxa weeye ka tanaasulaan oo Israa'iil ay qaadato in ay iska daayaan oo ka haraan soo noqoshada dadkii ka qaxay Falastiin oo Falastiiniintu ay ku dhagan yihiin in ay ka tanaasulaan tusaale ahaan oo kale in laba dawladood oo isku barbar yaala ay ka sameysmaan oo ay dhahaan waxa weeye waxaan noqonaa dawladdiina kamid ah ninka Falastiiniga ay waxa soo dhan loo ogolaaday wasiiradii waaweynada oo dhan haddii uu ku farxo oo yiraahdo war wasiiraa la ogolaaday oo waxba la isiiyay oo intaas oo waxaan haystaa baaka mansab baan haystaa manaasibtaasi waxay noqonaysaa manaasib hash ah oo liidata oo ku xiran waa lagu magacaabay tikreeto kale oo soo baxda oo iyaduna maxay sameeysaa ku casisha laakiin maxaad ka tagtay waxaad ka tagtay dhammaan makaasibtii waxa weeye salbiga ahayd ee adkayd ayaad ka tagtay oo wixii aad ku doodaysay ee dhulkii dhamaa ee waxa weeye dawladdu ku qumi lahayd iyo qawaaniintii iyo aayahaga oo dhan ayaad iibisay waxaad ku gaday maxay xilal baad ku gaday taasi waa tusaale kooban marka ninka siyaasiga waa inay arintaasi u miisaamantahay waxyaalaha muhiimka waxaa kamid ah marka loolan siyaasadeed meel ka jiro meeshaas waxaa jira isjiidasho ku dhisan awood marka haddaad itaal daran tahay maxaad yeeli maxaa kula gudboon maxaa samayn kartaa qolada ka soo horjeeda waxyaalaha qofka u banaan ninka siyaasiga waxa kamid ah horta inuu hogaansamo oo uu arko in waxa weeye laga adag yahay oo uu hogaansamo taas waa khiyaarka labaad waxa weeye inuu iska tanaasulo waxyaalihii uu ku dhaganaa uu ka tago khiyaarka saddexaad ama waxa weeye doorka saddexaad inuu iskaba ilaaliyo isku dhaca oo marka horeba dadka ka xoog badan ama jihooyinka ka xoog badan uusan marka horeba isku taagin ee iska ilaaliyo waxa kamid ah oo waxa weeye suurtagal ah qofku inuu ku dhaqaaqo siyaasiga ah inuu iska badaayo inuu muwaajahoodo oo qofka waxa weeye toos u abaaro
oo cidda ka xoog badan ama ururka ka xoog badan oo abaaro dowladda abaarto haba ka xoog badnaatee laakiin ay isdhisto oo waxa weeye awoodooda kobciso marka ikhtiyaaradan kala duwan ninka waxa weeye kaatibka ah doctorka kaatibka ah uu soo bandhigayo wuxuu rabaa in qofka siyaasiga ah uu garanayo keebaad waqtigan qaadanaysa marka duruuftaada iyo xaaladda hadda maraysid lagu fiiriyo ma soo koobi karo waxaan se idinkula talinayaa inaad buuggaasi daalacataan oo fiirisaan oo aad wax badan waxa weeye eegtaan waa buug aad iyo aad u kooban laakiin aad iyo aad waxa weeye loogu xardhay afkaar waxa weeye laga soo shaqeeyay oo si aad iyo aad u heer sareysa loo qoray fududna runtii fahmideedu iyo waxa weeye akhrintiisuba aad bay fududahay waxaan ku boorinayaa walaalahay ee dhageysanaya in ay ku dadaalaan akhriska kobciyaan waxa la yiraahdo aqoontooda ay ummadaha kale waxay qoreen ka faa'iideystaan iyaguna waxa weeye ay sameeyaan tarjumid oo waxyaalaha ay waxa weeye ka faa'iideen dadka kale ay af Soomaali u soo rogaan intaas aan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh من TV soo saarista shirkadda Nuur Calaamad